معلومات كاسودان هذا اسكسوكوبو إعلام مركا أي شرحيا وحي نقول هذا إعلامكم وعملية نشر الحقائق والأخبار الصادقة بين هذه خدمة للصالح العام وأن هذه العملية تتصل بالأمانة والموضوعية وهدفها النمو واليقظة والتوافق الثقافي والحضاري والارتقاء بمستوى الرأي العام بتنويره وتوثيقه إعلامكم بين هذه ورباهنته وأرنكو صابسيسا إن لفافيه وررك ربطة هي حقائق الدنيا كجرته iyadoo loo danaynayo bay yiraahdeen maslaxada guud ee bini aadamka iyadoo la rabo inuu ku saleysnaado bay yiraahdeen warbaahintu amaano iyo mawduuciya yani topiga inuu ka waramayo hadafka iyo danta laga leeyahayna waxa weeyaan bay yiraahdeen waa kobcinta iyo toosinta iyo baraarujinta مجتمع حق الثقافة دي كلجر كمركا لقايقو هي حق حضارة دي سبا سيكلا هدين نوتي الممنوع وحيلين والارتقاء بمستوى الرأي العام ومدى أركتي دي قودين كور لو قاضو لكن سؤال ماني دي ويديني وحا آن شاغي مية هي إعلام وحا سوى التعريف كودي إعلام كمان تشوغا مية إعلام أما ورباهنت ومؤسسة ومؤسسة كوبا وحيابة ترى بدل كو وحن لنا ومؤسسة اقتصادية ورجل بليونير رسالة دقالة لو فكراني دقالة صوصات مركا اي دقالة صوصات يسمى معناها كدن بيا وحويان بيلي قيم وقيم كمالي وحلقو قيمة يواء دون المركا وضع مشترك وقو بدن محا صوصاريا مثلا lacagta ugu badan la haduu soo saarayso aflaamta sagaska ku saabsan iyo wararka gudaafada ka waramaya iyo aflaamta xun iyo waxa saday lacagta ugu badan soo saarayso maadaama muasasada ay muasasada dhaqaale looga jeedo ay tahay daweyn kuwaasi ugu tira bata that's why aanu oran karno aflaam iyo qurun iyo waxan ay soo daynayso dhan iyadoo laga yaabo wasaaradda waxbarashada wasaaradda hidaaya dhaqanka wasaaradda waxa soo dham iyagoo le baalkan dadku dubinaya ayuu hadana socda waayo baa la leeyahay ومؤسسة دقالة كسليسا وين دقالة ولا صار سادرات بأخبار تقول بدنا يشجع وأخبار الجنسية كسابسا وهي بقى الجرائم تكسابسا يدلك يخبر عبك مسلسلات كبر حرد مواق قبل كذي خيامي سيئين قبل دي خيامية هي وحلا نوعا كلها وأخلاقيات فضراء لكن دقالة صارسة ولذلك بقى حلا هذا وهي بقى وقتنا بدنا لا دقالة كهلا إعلانات ككملة حيسينتا waxa la yiraahdo xayeysiintu dhamaanteed bana waa qofka bay dhaadeen intibaahiisa in la soo jeediyo qofka si aad intibaahiisa u soo jeedisana shay qariib ah shahwaati nafsiga waxay u badan yihiin dadka wayna tusisaa hadii taayir la xayeysiinayo in gabadh qaawani soo booda marka gabadha qaawan la wada arka kadib ba taayir bridge story ka soo baxaya waa taayir gaadhi wax ka dhaxeeya gabadha iyo taayir kama jiraan laakiin waa li shiddati al-intibaa si lagu soo jeediyo ayaa inan qaawani soo baxday kadibna taayir ma ka soo daba baxaya waxay yiraahdaan i'laamku waa mu'assasa harbiya bay yiraahdaan wasaaradda difaac bay ka tirsantay bay yiraahdaan waa mu'assasa dagaal waayo dagaalada la galo waxa ugu waaweyn bay yiraahdaan waxa loo yaqaan al-hurub an-nafsiyya waa weerar dadka lagu hayo oo in aqligooda la bedelo oo la gumaysto la weerarayo marka leenahay al-harb nafsi dagaalka nafsiga jariidada iyo TV-ga iyo raadiyoga iyo idaacada iyo waxa dhamay marka la isku daro ciidamada wadanku ay leeyihiin ama danta wadanku ay leeyihiin waxay u yihiin dagaalgelinta front line-ka cid ugu jirta sida awgeed waxay dhaahdaan al-harb nafsiya waxa ugu waaweyn lagu galo waxa kamida bay leeyihiin warbaahinta waxay suurto gelisaa bay yiraahdaan kow tahtiim iimaan al-khasm bi'aqidatihi siyasiyya bay yiraahdaan kan aad la dagaalamayso inaad jabiso oo la burburiyo aqidada siyaasiga oo ku dagaalansan oo aaminsan yahay in la burburiyo aqidada dhabta مثلا مثال بسيط aan siinaya si waxa kani waa runtii wax u baahan dad mutakhasisiin inay ka warramaan
laakiin maadaama aynu qadiya caama ugu talagalnaynana wax badan baan laga garanaynin waxaan isku daynaa amthilo basiita inaynu soo qaadano si loo fahmi karo. askarigu waxa ugu weyn uu ku dagaalgalaa waa maxay? qoriga maaha. ninka militariga dagaalamaya waxa ugu weyn lagu mobilize gareeyo waxa weeyaan waa caqiidadu aaminsan wuxuu u dagaalamayo. qof inaad tiraahdo halkaa uu ka dagaalgal dee suurtagal maaha. dad imika inta dadka rabta tiraahdo un dooxa wixii soo maran laaya aqbali maayaan, laakiin sabab lagu laayo dooxa wixii soo mara waa inaad sharaxdaa. idan waxa ugu weyn qof lagu dagaalgeliyaa waa wuxuu aaminsan yahay. مثلا qofka muslimka ah caqiidu ku dagaalamaa ilaahay rasuulkiisuna waxay yiraahdeen oo janno u helayo dad way aan u baqayna u dhimashada u rabo. in ninka askariga caqiido loo sameeyo uu aamino uu ku dagaalgala waa waxa ugu khatarsan. haddii taa laga burburiyo ciidankaagu dagaalami kari maayo. haddii taa laga burburiyo ciidankaagu ma dagaalami karo. waxa uu qabtaba la yiraahdaa islaamkii ugu weyn waxa weeyaan markuu muasasa dagaaleed uu yahay inuu buriyo ninka kale wuxuu dagaalamay inaad bila qadiyad tahay in laga dhigo, inaad gardarantay in laga dhaadhacsiiyo, in laga dhaadhiciyo askariga xaqiisa ka dagaalamayana inuu yahay kii dadka ama xorriyada u waday ama waraaga waday ama caynkan waday oo caqiidadaasi uu rumaysto ilaa xad uu ku dagaalgali karo. idan haddii qofku uu jabo waxa haziima nafsiya waa jabka nafsiga aba ka weyn jabka maadiga dadku uu jabo. waxay yidhaahdaan alxarbi nafsi waxa uu keenaa intisaar yaro aad meel ka heshay inaad meeshoo dhan ku saytarayn karto. haddii askartaadu goob yaray guulaysatay oo goobtaa yar aad soo wada bandhigto oo ciidanka kale aad tusiso oo warbaahintu ay gaadhsiiso caynka qolana dhabar jabin bay ku tayo jab oo ay arkayaan wixiiba jabeen, qolana waxay u tahay niyad dhisin iyo dagaalgelin aad u weyn. sida daraaddeed inay caynka hadda waxaad ka garanaysaa maraykan oo dawladdii dunida la leeyahay waa u xoog badan taya ayaa majlis al-amn al-qawmi intuu fadhiistay wuxuu isugu yeedhay 6 TV ee waddanka Mareykan ugu weyn oo dhan waxa amar lagu siiyay xarbigii yaraa ee Ciraaq ka socday iyagu ay wadeen ee xoog badan ay ku wadeen inaan la soo daynin ama ka Afghanistan ka wadeen inaan la soo daynin TV yar oo miskiin oo Al-Jazeera la yiraahdo qawmiya waxa uu al-bath al-mubashir ka leeyahay يعني ورك توس كائنا لسود إنه censorship مرة مويان وهي واحد الذي دنيا عقيدة دي لقد داعية مجتمع أمريكاني يشبطه رأي الدنبا لقد داعية وطن دنبا مدحوينه هذا بقول كيف تضبط كنت أجرتين إنه تقال كوضه لكن سببه اللي جوا ده وحنا هين هديدت الله سبحانه وتعالى ويكهرا يعني كان تقال ما يا ورجوتش على ليه وسببه هو هنا يوجد شباب بينادين حدوا في تنام فحلا فصحي بينادين ورباهين حر نقطي dabeetana waxay noqotay in khalkhal la gelin karo shacab weynaha Mareykan oo lagu qasbo dawladdu inay aqbasho inay ka soo baxdo dagaalka si aan taasi u dhicin. waa in janan ciidanka ka mid ah meel la taagayo la yiraahdo isaga warka idin sheegaya oo yiraahdo maanta intaana waanu dilay bal heblaayana waanu gallay waa warkii dunida loo sheegayba. janankii ciidanka hogaaminaya intuu meel soo taago wariye ah oo dunida u sheegaya wixii uu jabiyay iyo wixii uu laayay iyo intay jabiyeen waayo waxay ka hor jeedaa مؤسسة حربية وين إسكالية وحي كتل المامان ومؤسسات حزبية بينها حتى قلت السياسيين تاعي بلشدة بينها إني وحامي توين الله بسلايا ورق السياسي جميل كتيرا سو دور شو هلا ما وحنو هلا وحنو دون يو الرباين وضبط كنا دعيوين بلشدة وبسلايا وين الجيران مركز جرايد TV يو وضيع وحابا يدادن دي فلسفة جرى الله يداد صناعة الرأي العام أبو رستا أما السمينتا رأي قد دوينها بالله يدادا خبرها مالو فرددا بلشدا مسكين كي TV قد داوته يا الراديو قيو وركا كل بالرأي قد النوع الله سمايه ولذلك أي هبر يهودية دي ورئيستين مركي أي قراعين مفاعشي نووي قاهي عراق 1981 kii meelaha sayidna filaya markii la garaacay ayaa shacab weynaha Mareykan bay dhaaheen carooday marka habar wariyada baa hadasho waxay tiri waxaan ku guuleysatay 48 saacadood inaynu ku bedeli karno ra'yiga Mareykanku masalada ka qabayo dhan yani sanaacad ar-ra'y mujtamac dhami wixii markii hore laga dhaadhicay 48 saacadood baa laga soo hoyday in xagga kale loo rogo oo wuxuu aaminsanaa waxaan ahayn la keeno
waxay yidhaahdaan iclaamku waa mu'asasa tarfiihiya bay yidhaahdeen waa mu'asasa dadka maaweelisa weliba bay yidhaahdaan wax allaaliya waxa iclaamku soo saara inta ugu badan le 90% tviyadu waxay soo saaraan bay yidhaahdaan waa maada tarfiihiya dadka waqtiga laga lumiyaa